anigoo liigu leeyahay soon qallo sagaalka maalmood ugu horreysa ee bisha dilxij ma soomi karaa? alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah. walaalaha ilaahay dartiisu jecla meel adduunka aad ka joogtaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. maanta waxaan rabnaa inaan ka jawaabno su-aal soo noqnoqoto waqtigan oo kale markii la gaaro shawaalka 6 maalmood markii la gaaro ama 10 maalmood carafa markii la gaaro. su-aal aad u soo noqnoqotaa jirto. su-aashaasna waxaa waaye anigoo qalaligu leeyahay bishii ramadaan lasoo dhaafaa maalmo iga tageen 5 maalmood 7 maalmood waa iga tageen, ma soomi karaa 10 maalmood fadliga badan? ma soomi karaa anoo qalaligu leeyahay? haddaan soomane ajir ma helaa? ajirka sunnada ma helaa? su-aashaas jawaabteedana waxaa waaye waxaa fiicnaan lahayd qallaha inaad soo gudid intaysan 10 maalmood imaanin, laakiin hadda waa timid soo maaha. 10 maalmood way joogtahay, 9 maalmood la soomayay ayaa bilowday. ayib anigana qalaligu leeyahay waa soomi waaye, hadda maxaa xal maxaa la sameeyaa? waxaan ku dhihi lahaa mas'aladan waa mas'alo cumar iyo cali radiallahu canhuma ay isku khilaafeen. cumar radiallahu canhu wuxuu dhihi jiray qofkii qalla lagu leeyahay 10 maalmood ha soomo, 9 maalmood ha soomo, siduu qallahana aga baxo ajirkana insha allah wuu helaa. cali laakiin wuu diidi jiray, wuxuu dhihi jiray qallaha gooni waaye kana gooni waaye. waxaan kula tali lahaa marka insha allah tacaala 8 maalmood ugu horeyso at least khilaafka aga baxdid 8 maalmood ugu horeyso qallahaaga niyeyso insha allah tacaala. qallihii waa kaa dhacay waana sooman tahay, laakiin maalinta carafa insha allah tacaala soon sunno niyeyso. saa khilaafka aga baxdidbo 8 adina qallihina waa kaa dhacay insha allah. waxaan rajaynaynaa ajirkan inaa heshid, waa rajaynaynaa. xataa haddii noqo weyso cala alaqal qallihii waa kaa dhacay insha allah tacaala. qallah in la gudaana ka owleysan arrimaha kalo. marka qallaha gud 8 maalmood ugu horeyso ama 6 maalmood ugu horeyso ama 7 maalmood ugu horeyso, laakiin maalinta carafo oo maalinta 9aad oo soonkeeda 2 sano ajirkeeda yahay, maalintaas waxaa niyeysataa soon sunno niyeyso. haddaba walaalaha ilaahay dartiis u jeclahay, soonka waxaa bilaabaysaa maalinta 1aad oo bisha dilxij. waa sunna waajib ma ahaya. haddaa soontidna ajraa heli, haddaa soomi weysana culeys ma ku saarna, dembi ma leedihin, laakiin inaa soontidaa kuu fiican. ayib soonka maalinta 1aad oo dilxij oo maalinta 4 bilaabaysa. markaa bilowdid waxaa leedahay marka waxaa niyeysanaysaa qallo. ma niyeysanaysid sunno, ma niyeysanaysid, mana isku dari kartid. 2 niyo haddii laisku daro culummada waa diideen 2 cibaado oo kala duwan in hal niyo laisla keeno. waxaa laga yaaba labadaba inaysan kaa dhicina laga yaaba, labadaba inay bug noqdaan laga yaaba. sidaa darteed waxaa niyeysataa qallo niyeyso. maalinta 8aad iyo 9aad ama maalinta 9aad waxay noqotaba 9aada ugu muhiimsani waxaa niyeysataa sunno soon, laakiin iska ilaali 2 niyo inaa niyeysatid. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. إلى درتي سيدين جعله هاي اللوبين إن شاء الله تعالى إنا سونتان دنبيجنا الله دافو، دنبيج والدكنا دافو. كليب كان وحان رجينا قفل بإن لكارسي وفائدة بدني هي وحالجا يبقف سؤاشا مسكحدي سكون نقنيسي إني أنفع أو جوابي أو نقاطه. جود بخير الله كسيه أجرنا وهليس أنا جن وهلا أو ذا أجر يسمى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إلى درتي سيدين جعله 10 مالمود أو 10 مالمود أو قيمة بدنا خير الله يدين سيو. 9 maalmood le waa 30 maalmood soo socod. 9 maalmood soon isku day xataa inaan soomi kadib bari ka soon insha allah. khayr allah idin siiyo. ahilmaamina sii gudbisid. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.